mid waxaan leeyahay Cabdi Dheere oo xilkan waa meerte waxaan rabnaa inaan Muuse la shaqaysid maanta laga bilaabo midna waxaan leenahay Muuse Salaad oo Cabdi Dheere hadda yicin horuu kaaga soo horeeyay meesha taliyii hore waxaan u rajaynayaa jagadan ka sii weyn asagoo ku fadhiya inaan Ilaahay iskaana tuso taliya cusubna waxaan u rajaynayaa kii xilkiisa guta oo waajibaadkiisa guta oo bulshadu mahadiso taliye aadan mataqaana ku soo dhaweynaya waxa tahay nin aad u firfircoon shaqada loo igmaday iyo dawlad jaceylnimadaada annaga horaan u aragnay insha Allah taala inaad sharciga nala ilaalin doonto nala shaqayn doontana waa maleynina dadnimada iyo booliiska muuqdo astaantii qaranka Soomaaliyeed oo dhiiri gashay dadkii dalka loo shaqaynayo waxa soo dhan waxa Ilaahaygi weynay oo na abuurtay ka sokow mas'uuliyadaas iyo abaalintaas waxa iska leh taliya qaybta booliiska gobolka Hiiraan Cabdi Mahad waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado in ciidamada booliiskuna ay laba u kala bixi doonaan bulshaduna ay laba u kala bixi doonto insha Allah ciidamada booliisku waxay u kala bixi doonaan aniga la iga bilaabo iyo inta iga hooseyso in gudato waajibaadkii qaran ee loo idmaday oo ay ku dhaarteen oo helo birimi iyo dalacaad iyo wixii xuquuqaad ay ku leeyihiin dawladda Soomaaliyeed iyo tan Hirshabeelle iyo in guda wayso oo hesho bedelkeeda ciqaabkii iyo yaani wixii xaq u lahaa leedo kale oo dhanka kala ciidamadu saasi u kala bixi doonaan maanta laga bilaabo bulshaduna waxay u kala bixi doontaa in nagu taageerto wanaaga iyo dawladnimada ogolaatana inaan ku hoos noolaano sharciga iyo in diido oo dawladdiida oo u riyaaqdo in telefoon laga xukumo insha Allah taala meesha telefoon laga xukumo ama aadi doontaa ama intaan isku farsaarayna sharciyan ka soo baxo salaamu alaykum taliyii hore meel fiican uu shaqada dhigay waxa lagaga baahan yahay in shaqada la mid ah ama ka sii fiican ba inaad halkaas dhigta maanta ciidanka booliiska sidii hore ay ka wanaagsan yihiin sidii hore ay aad ugu fiican yihiin inta ugu badan ay mishaar qaataan inta ugu badan ay xuquuqaad helaan